بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي باكليدي مهدله مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa waxay ku codtimeen safar shaqo dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi safarka madaxweynaha waxa ku wehelinaya xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xukuumadda oo ay ka mid yihiin wasiirka madaxtooyada wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka iyo madaxa xafiiska madaxweynaha ama chief of staff-ka waxa xusid mudan madaxweynaha waxa ka sii horeeyay la taliyaha sare ee arrimaha dhaqaale ee madaxweynaha iyo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muddada uu joogo dalka Kenya wuxuu wada hadallo la yeelan doonaa xukuumadda dalka Kenya ee uu garwadeenka ka yahay President William Ruto isagoo kala hadli doona danaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland muhiimadda iyo mudnaanta gaarka u leh sidoo kale madaxweynuhu wuxuu kulano gaar la yeelan doonaa hay'adaha caalamiga ah ee fadhigooda uu yahay dalka Kenya iyo safaaradaha dunida ee dalka Kenya fadhigooda yahay isagoo kala hadli doona danaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ha noqoto kuwa dhaqaale kuwa amni kuwa istiraatijiyadeed iyo kuwa diblomaasiyadeedba sidoo kale muddada madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ku sugan yihiin dalka Kenya wuxuu madaxweynuhu xadhiga ka jari doonaa dhismo casri ah oo ay yeelan doonto safaaradda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Nairobi dhismahaas oo si qurux badan loo qalabeeyay ayaa hooy u noqon doona safaaradda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay dalka Kenya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu waxay ku dhoofeen diyaarad khaas ah